haye asxaabta maanta waxaan dib ugu laabanaynaa dunidii madoobeyd ee qaybtii hore ka soo hadalnay waxaa dib noogu soo laabtay taxanaha naxdinta leh ee Sweet Home seasonkii labaad intaanan u gelin dhacdooyinka cusub aan xusuusano halkii wax noo maraayeen dunidii bini'aadamka waxay isu beddeshay jahawareer habaar qariib ah ayaa dadka ku dhacay kaas oo qof kasta u beddelaya bahal marka uu damaciisa gudaha ka adkaado maahan fayras sidii saansiska oo kale ah oo qofka la qaniino uun u beddelaya kani waa mid ka dhasha waxa aad u baahan tahay haddii aad tahay qof muruqyo jecel waxaad u beddelmaysaa bahal weyn oo xoog badan haddii aad tahay orodyahano waxaad noqonaysaa bahal hilaaca ka dheereeya xitaa madaxweynihii dalka ayaa si toos ah telefishinka uga beddelmay militariguna ay toogasho ku dileen dowladdii way duntay militariga ayaana la wareegay awoodda dalka si ay u gumaadaan qof kasta oo calaamado bahal ah laga arko laakiin waxaa jira dad ka badbaaday habaarkaas kuwaas oo loo yaqaano isbeddelayaasha gaarka ah waxay dhiigooda ka adkaadeen bahalkii iyagoo haysta awood weyn laakiin weli ah bini'aadam geesigayaga hiyansu waa mid ka mid ah dadkaas muddo 10 qaybood ah ayuu gudaha naftiisa kula dagaalamayay shaydaanka madow ilaa ugu dambayntii uu la soo baxay baal weyn oo koronto iyo dab xambaarsan dhinaca kale waxaa jooga ninka maskaxda madow ee la yiraahdo Kirigo isagu waa bahal dhiig ah oo qabsan kara jid kasta dhammaadkii xilli ciyaareedkii koowaad wuxuu qabsaday jidkii saaxiibkayaga Sangwok wuxuuna ka haystay gaari gaashaaman isagoo badbaadinaya hiyansu hadda season labaad wuxuu ku bilaabanayaa orod iyo baacsi waaliya baabuurka gaashaaman ayaa hilaac u maraya wadooyinka magaalada duntay ciidamada militariga ayaa rasaas aan kala joogsi lahayn ku harqinaya gaariga iyagoo raba inay qabtaan labadan isbeddelayaal oo ay baaritaan ku sameeyaan laakiin Kirigo maahan qof si fudud loo qabto wuxuu u kaxaynayaa gaariga si xirfad leh isagoo militariga ka dhex baxaya sidii isagoo cayaar ku jira isla xilligaas gabadha dabdemiska ah ee Lara waxay ku biirtay ciidamada militariga ee ay hogaaminayso gabadha adag ee Tang Jay Lara waxay militariga u dhiibtay sanduuq sir ah si ay u badbaadiso saaxiibadeeda kale dadkii kale ee ka soo badbaaday dhismaha Green Home sida Inu Jisu iyo Kummo waxaa lagu soo guray baabuurta militariga iyadoo loo kaxaynayo xero barakac oo loogu magac daray Silado laakiin ha moodin in xeradaas ay ammaan tahay khatarta ugu weyn waxay ka timaadaa askarta hubeysan ee ay tahay inay dadka ilaaliyaan mid ka mid ah askarta ayaa istaajiyey dadka barakacayaasha ah wuxuuna arkay nin xanuunsanaya oo sanka dhiig ka imaanayo kani waa bahal ayuu askarigii ku qayliyey isagoo qorigiisa u diyaariyey toogasho mid ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ayaa istaagay isagoo leh maya isagu maahan bahal waa nin qaba xanuunka sangaroorka halkan ka eega warqadihiisa caafimaadka askarigii wuxuu u muuqday inuu aqbalay wuxuuna yidhi haye aan fiiriyo si lama filaan ah askarigii arxanka daran ahaa wuxuu xabad kaga dhuftay madaxa ninkii xanuunsanayay rasaastii ayaa dhex martay madaxa ninka miskiinka ah isagoo dhulka ku dhacay isagoo meyd ah goobtii waxay isu beddeshay argagax iyo oohin militarigu hadda ma kala soocayaan qof xanuunsan iyo mid bahal ah qof kasta oo sanka dhiig uga yimaado waa bartilmaameed dhimasho masiibadii weynayd hadda ayay bilaabatay bini'aadamka ayaa ka naxariis daran bahalada haddii uusan lahayn wax calaamad ah wuu badbaadayaa laakiin haddii calaamad lagu arko askartu si toos ah ayay u tooganayaan nidaamkan cusub ee militarigu ku maamulayo dadka waa mid naxariis daran oo bini'aadanimada ka fog laakiin dunidan bahaladu ay qabsadeen waxay u arkaan inuu yahay jidka keliya ee lagu badbaadi karo inkastoo amniga si adag loo ilaalinayo haddana masiibadu ma foga si lama filaan ah waxaa dhexda ka soo booday bahal u eg lizard oo aad u naxdin badan dadkii barakacayaasha ahaa ayaa argagax awgeed kala yaacay dhiig iyo qaylo ayaa isqabsaday bahalkan inkastoo wejigiisu naxdin yahay haddana dhab ahaantii waa sidii bahalkii cagaarnaa ee season koowaad aad ma rabo inuu dadka dhibo laakiin militarigu ma kala soocaan waxay ku fureen rasaas xooggan iyagoo u arkaya inuu yahay cadow halis ah waxaase ka sii daran intii qaskaas uu socday dadkii deganaa Green Home ee soo badbaaday waxay isku dayeen inay iscaawiyaan laakiin eygii yaraa ee ay wateen ayaa mar kale lumay gabadha geesiyadda ah ee Inu intii buuqu socday waxay si dhumaalaysi ah waxaday qori ay ka furtay mid ka mid ah askarta waxayna ku qarisay jeebkeeda waxay qorigii ku qabatay darawalkii gaariga militariga iyo madaxdiisii waxayna ku qasabtay inay dib ugu laabtaan dhismihii burburay ee Green Home waxay aaminsan tahay in walaalkeed Ian Hyok uusan dhiman oo uu weli ku jiro burburka hoostiisa markii ay gaartay dhismihii waxay aragtay wax qalbiga ka jabinaya dhismihii weynaa wuxuu isu beddelay taalo burburtay waxay ka dhex heshay muraayadihii walaalkeed iyo buuggii diiwaanka ee uu ku qori jiray magacyada dadka walaalkeed wuxuu u beddelmay bahal laakiin si uu dadka kale u badbaadiyo wuxuu go'aansaday inuu burburka ku dhex jiro oo uu halkaas ku dhinto Inu waxay la ooyeysay murug iyo xanuun laakiin ma oga in khatar kale ay gadaal kaga soo dhawaanayso dhanka kale askarigii dhalinyarada ahaa ee naxariista badnaa ee aan u bixinay Hawshan Liang ayaa isku dayay inuu xaaladda dejiyo laakiin ninka dhibaatada badan ee Kummo ayaa mar kale qasameeyay isagoo raba inuu baxsado ayuu sababay in askartii kale ay awoodda dib ula wareegaan madaxii askarta oo caraysan ayaa amray in dadka gacmaha iyo lugaha laga xiro oo looga tago burburka dhexdiisa si ay u dhintaan laakiin Hawshan Liang oo dhab ahaantii ah nin qalbi furan ayaa xadhiga si dabacsan ugu xiray isagoo u sheegay inay baxsadaan marka militarigu tago si lama filaan ah waxaa dadkii hortooda ka soo muuqatay haweeney qaawan oo jidhkeeda uu dheecaan ka daayo waa haweeneydii weysay ilmaheeda ee Shang Lianso waxay ka soo baxday unugii weynaa ee ay ku jirtay haddana waxay u muuqataa bini'aadam caadi ah laakiin ma lahan dareen ma lahan dhiig mana dareemayso xanuun askartii ayaa argagaxay iyagoo raba inay gubaan makhluuqan qariibka ah markii ay rasaastu bilaabatay waxaa soo baxay bahalkii indhaha laa ee Isef maqaladiisu waa hilaac qof kasta oo neefsada ayuu dareemayaa dadkii waxay bilaabeen inay si aamusnaan ah ugu socdaan dhanka baabuurka baska ah si ay u baxsadaan laakiin Kummo ninka naftiisa kaliya jecel ayaa baskii ka haystay isagoo dadkii kale kaga tegaya banaanka askarigii geesiga ahaa ee Hawshan Liang ayaa bahalkii u galay si uu dadka kale u badbaadiyo isagoo qarka u saaran in bahalku qoorta ka gooyo ayay inuu baskii si xoog leh u soo kaxaysay waxayna u timid si ay u badbaadiso askarigii naftiisa u huray maanta aniga ayaa ku badbaadinaya ayay tiri Inu iyadoo baskii ku dhufatay bahalkii si ay jidka ugu furto geesiga dhalinyarada ah markii ay dadkii badbaaday iyo askartii daciifka ahayd ka tageen burburka dhismaha meeshii waxay isu beddeshay meel cidla ah oo dhiig uun yaallo laakiin cabaar kadib waxaa goobta soo gaaray ciidan ka duwan kuwii hore waa guutada tukaha ciidanka ugu sarreeya militariga ee loo tababaray inay gumaadaan bahalada hogaamiyahooda oo wejiga nabar weyn ku leh laguna magacaabo Barilayn waa nin arxan daran laakiin leh mabda' gaar ah askartu waxay dhex galeen dhuumaha hoose ee dhismaha halkaas oo ay ka heleen bahalkii lizard
waxay ogaadeen xaqiiqo naxdin leh bahalku ma rabeen inay dadka dhibaan balse waxay ilaalinayeen ilmahooda yar ee ku dhex jira dhuumaha hogaamiye Barilayn markii uu arkay ilmihii yaraa wuu u naxariistay wuxuuna amar ku bixiyey in la daayo anagu waxaan dilnaa bahalada dadka cuna maahan kuwa naftooda badbaadinaya ayuu yidhi laakiin askariga xun ee Yudogo ayaa caraysnaa isagoo aaminsan in bahal kasta la dilo dhanka kale geesigayaga Hiyansu iyo ninka dhiiga ah ee Kiligo oo ku jira jidhka Sangwok waxay u socdaan dhanka saldhigga Bamdo laakiin wax qariib ah ayaa dhacaya jidhkii Sangwok ayaa bilaabay inuu diido amarka Kiligo waxay u muuqataa in ruuxii Sangwok uusan weli dhiman oo uu gudaha kula dagaalamayo ninka dhiiga ah gaarigii ayaa rogmaday Kiligo ayaana ku dhex godoomay jidhkaas isagoo awoodiisa waayay Hiyansu isagoo naxariis badan ayuu saaxiibkiis dhabarka ku xambaaray wuxuuna u kaxaystay dhanka militariga si uu naftiisa ugu horo tijaabooyinka caafimaad saldhigga Bamdo dhexdiisa waxaan ku aragnaa naxdin ka weyntii bahalada dhakhtarka waalan ee Dasami ayaa dadka ku samaynaya tijaabooyin arxan darro ah waxaa jira laba nooc oo isbedelayaal ah kuwa huruuda ah oo weli binu aadam u eg laakiin aan dareen lahayn iyo kuwa gaduuda ah oo gebi ahaanba bahal noqday mid ka mid ah tijaabooyinkaas hooyo iyo gabadheedii ayaa lagu khasbay inay isdilaan si loo arko haddii dareen binu aadam uu jiro qaylada iyo oohinta gabadha yar ayaa gilgishay derbiyada qabow ee saldhigga hadda waa markii Hiyansu waxaa loogu magac daray mafaashanaad wuxuu isagoo qaawan soo galay fagaaraha weyn ee tijaabada si uu ula dagaalamo bahal gaduudan oo aad u xoog badan si uu cadho u geliyo militarigu waxay ku shubeen dhiig aad u badan dagaalku markii uu kululaaday Hiyansu wuxuu muujiyey awood cusub indhihiisa ayaa caddaan noqday wuxuuna awooday inuu dhex galo xusuusta bahalka uu la dagaalamayo bahalku dhab ahaantii wuxuu ahaa nin miskiin ah oo qaba cudurka kansarka damaciisuna wuxuu ahaa inuu helo jidh caafimaad qaba Hiyansu ayaa gacantiisa saaray isagoo ka bixiyey xanuunkii iyo cadhadii bahalkiina wuu isdejiyey dhakhtar Dasami ayaa arkay awoodda Hiyansu wuxuuna u sheegay in talaalkii masiibadan mar hore la sameeyey laakiin militarigu ay dumiyeen haddii aad i caawiso mid cusub ayaan kuu samaynayaa ayuu yidhi dhakhtarku isla xilligaas gabadha dabdemiska ah ee Lara ayaa dhex gashay qolka tijaabada ee mafaa koowaad kaas oo ahaa ninkeedii ay raadinaysay laakiin markii ay u tagtay waxay heshay meydkiisii oo keliya Lara waxay dareentay xanuun weyn oo uurka ah caloosheeduna si mucjiso ah ayay u weynaatay dhowr maalmood gudahood ugu dambayntii militariga sare iyo madaxda dowladda ayaa isku dhacay madaxweynaha ayaa amray in guutada tukaha la kala diro hogaamiye Barilayn ayaa looga digay meel kasta tag laakiin ha tegin xeradada weyn ee barakacayaasha sababtoo ah halkaas maahan meel ammaan ah masiibo kale ayaa soo dhow mana jiro qof garanaya cidda xigta ee dhimanaysa miyay suurtogal tahay in ra'iisul wasaaruhu uu ka waashay maskaxda ma rabo inuu dadka badbaadiyo wuxuu rabaa inuu dhammaantood gumaado maxay tahay sirta weyn ee u qarsan militariga maxaase sababay in sarkaalkii sare ee militariga uu istoogto jawaabtu waa mid naxdin leh dhakhtarkii waalnaa ee Dasami wuxuu ogaaday in habaarku uusan ahayn cudur balse uu yahay hab dabiici ah oo dhulku isaga sifaynayo binu aadamka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa rumaysan in binu aadamku yihiin fayras bahaladuna ay yihiin talaalka dhulka lagu sifaynayo sidaas darteed qorshihiisu maahan inuu dadka ku badbaadiyo xerada balse waa inuu hal meel isugu keeno si uu dhammaantood u wada dilaa si lama filaan ah ra'iisul wasaarihii waalnaa ayaa riixay badanka masiibada gantaalo waaweyn oo kuwa ridada dheer ah ayaa ku soo dhacay xeradii barakacayaasha qaraxyo waaweyn ayaa gilgilay xerada dhawaaqa oohinta iyo qaylada dadka ayaa isqabsaday halkan waxaa ka dhacay masiibo aan loo dulqaadan karin wiilkii yaraa ee ay saaxiibka ahaayeen dadkii deganaa Green Home ayaa ku godoomay burburka hoostiisa geesiyadii Inu ayaa isku dayday inay badbaadiso laakiin nasiib darro indhaheeda ayay ku aragtay wiilkii yaraa oo burburka ku dhex nustay ilaa uu u bedelmay hilib iyo lafo burburay qalbigeedu wuxuu dareemay xanuun aan dhammaad lahayn dhanka kale saldhiggii militariga ee Bamdo waxaa ka dhacay iska hor imaad diig ku daatay hogaamiye Barilayn iyo guutada tukaha ayaa ogaaday qorshaha waalida ah ee ra'iisul wasaaraha waxay galeen qolka shirarka halkaas oo ay isku dhaceen askartii ra'iisul wasaaraha laakiin wax yaab leh ayaa dhacay markii ay xabad kaga dhufteen ra'iisul wasaaraha ma uusan dhiman wuxuu u bedelmay bahal leh gacmo dhaadheer oo dhiig leefaya ninkii dadka u sheegayay inay bahalada dilaan isagii ayaa bahalka ugu weyn ahaa askarigii Yudogo ayaa dab ku qabtay qolkii isagoo halkaas ku gubay ra'iisul wasaarihii dilaaga ahaa isla xilligaas waxaa dagaal naxdin leh dhex maray Hiyansu iyo ninka dhiiga ah ee Kiligo Hiyansu wuxuu isku dayay inuu awoodiisa xakameeyo si uusan saaxiibkiis u dilin laakiin Kiligo ma naxariisto baalkii madow ee Hiyansu ayaa la gooyey ugu dambayntiina Kiligo wuxuu nuugay jidhkii Hiyansu wiilkii geesiga ahaa wuxuu u bedelmay taalo dhagax ah oo dhextaal qolka tijaabada isagoo miirla oo sugaya dhammaadka adduunka waqtigan xagee bay ku dambaysay gabadha dabdemiska ah ee Lara iyadoo uur leh ayay ka soo carartay qaraxyada saldhigga waxayna timi bannaanka oo baraf ah halkaas iyadoo barafka dusheeda taal ayay fooli ku bilaabatay kani waa muuqaalkii ugu yaabka badnaa Lara waxay dhashay iyadoo barafka jiifta dhalashadii kadibna barafkii ayaa dilaacay waxayna ku dhacday biyo qabow oo baraf ah markii ay soo miyirsatay maalintii dambe waxay aragtay ilmaheedii oo dhex fadhiya barafka isagoo cunaya xadhiga xundhurta ilmahaas maahan mid caadi ah jidhkiisu waa madow u eg saliid madow wuxuuna leeyahay awoodda bahalada sheekadu waxay hadda u guurtay waqti kale waxaa laga joogaa 337 maalmood tan iyo markii masiibadu bilaabatay dadkii badbaaday waxay hadda ku nool yihiin dhulka hoostiisa meel gabaad ah oo ay maamusho guutada tukaha noloshu waa mid adag maalin kasta waxaa dadka lagu sameeyaa baaritaan dhiig ah qof kasta waxaa la mariyaa mindi si loo arko haddii boogtiisu ay dhaqso u bogsanayso haddii ay si degdeg ah u bogsato macnaheedu waa qofkaas wuxuu bilaabay inuu bahal u bedelmo isla markiina waa la dilaa cuntadii iyo shidaalkii ayaa gabaabsi noqday rasaastii askartuna way dhammaanaysaa dadka dhexdiisa waxaa ka jira gadood laakiin cidna ma dhiirato inay bannaanka u baxdo bannaanka waxaa ku nool 3 nooc oo bahalo ah kuwa gaduuda ah oo ah dilaayo dhab ah kuwa huruuda ah oo xaaladoodu dhexdhexatay iyo kuwa cagaarka ah oo ah kuwa naxariis badan oo aan dadka dhibin dunidii quruxda badnayd waxay noqotay meel lagu tartamo geerida iyo nolosha qof kastana wuxuu isweydiinayaa muxuu noqon doonaa dhammaadkeenu dunida hadda ka jirta xerada dhexdeeda qof kasta wuxuu leeyahay laba waji mid uu dadka u tuso iyo mid uu bahalka gudahiisa ku jira ku qariyo xerada barakacayaasha ee dhulka hoostiisa ah waxaa ka jira 2 qof oo keliya oo aan militariga u hogaansamayn mid waa gudoomiyaha haweeney adag oo iyada iyo ninkeedii ay dhismahan barakaca keeneen dadka ka hor intaan militarigu imaan midka kale waa geesiyadii dhismaha Green Home ee aan naqaanay Inu
si lama filaan ah sanad ka hor ninkii gudoomiyaha ayaa u bedelmay bahal wuxuuna weeraray Inu laakiin gabadhan kulul ayaa dishay bahalkii tan iyo maalintaas qof kasta oo xerada jooga wuxuu u arkaa Inu dilaa waxayna noqotay qof laga fogaado laakiin Inu ma danaynayso habeen kasta waxay si dhumaalaysi ah uga baxdaa xerada iyadoo raadinaysa walaalkeed Ian Hiyo habeenkan 3 qof ayaa gadaal ka raacay laba waa rag uu soo diray gudoomiyaha si ay u basaasaan midka kalena waa wiilka miskiinka ah ee Aday oo leh dhibaato dhanka maskaxda ah Aday wuxuu banaanka u soo baxay si uu daawo ugu soo raadiyo hooyadiis oo qabta cudurka kansarka laakiin raggii raacay Inu waxay qorsheeyeen inay dilaan gabadha si lama filaan ah Inu ayaa dareentay in la raacayo waxay u carartay dhanka warshad duugoobay laakiin halkaas waxay ku kulantay bahal yar oo u eg ilmo yar isagoo argagaxsan Inu ayaa ka soo dhacday meel sare waxayna ku miyir beeshay dhulka raggii eryanayay ayaa yimid iyagoo si waali ah xabada ugu riday wax kasta oo dhaqaaqa laakiin rasaastii waxay ku dhacday gabadh yar oo qariib ah gabadhaas yari waa tan ay dhashay Lara markii mid ka mid ah raggii uu u dhawaaday si uu u eego gabadhii ayaa indhaha cadaysay kani waa awood ka duwan tii Hiyansu iyadu ma soo celiso miyirka ee waxay xoojisaa damaca madow ee bini'aadamka dhexdiisa ku jira iyadoo qofka ku qasbaysa inuu markiiba bahal u bedelmo si naxdin leh raggii iyo wiilkii miskiinka ahaa ee Aday waxay ku dhaceen gacanta gabadhaas dilaaga mana jiro qof dib u soo laabtay dhanka kale xerada dhexdeeda hooyadii Aday oo xanuunsan ayaa isku dayday inay baxsato si aysan culays ugu noqon wiilkeeda waxay dareemaysaa in sanka dhiig uga imaanayo habaarkii ayaa bilaabmay laakiin nasiib darro waxay ku istaagtay miino ay militarigu dhigeen askarigii naxariista badnaa ee Hawshan Liang ayaa markiiba yimid isagoo lugta ku qabtay miinadii si aysan u qarxin waan ogahay inaad bahal u bedelmayso laakiin kuma daynayo ayuu yiri askarigii ugu dambeyntii hogaamiye Barilayn ayaa adeegsaday gaari militari oo lagu garaacay miinadii halka askarigii iyo haweenaydiina ay badbaadeen ka hor intaan qarax u dhicin kani waa muuqaal muujinaya in naxariistu weli dunida ka jirto dhanka kale warshadii dhexdeeda Inu ayaa ku soo toostay iyadoo ay ku wareegsan yihiin boqolaal bahalo gaduudan ah iyo unugyo badan oo u diyaarsan inay dhashaan iyadoo qarka u saaran in bahaladu ay hilibkeeda googooyaan ayaa waxaa soo muuqday qof dahsoon qofkani wuxuu bahaladii u khaarijiyey si hilaac ah wuxuuna Inu u furay albaab ay kaga baxsato dhimashada Inu waxay aaminsan tahay hal shay oo keliya waa walaalkay isaga ayaa badbaadiyey markii hore haddana wuu soo laabtay waxay aaminsan tahay in walaalkeed Ian Hiyo uu hadda bahal yahay oo uu ku dhumanayo mugdiga isagoo ka xishoonaya inuu wejigiisa tuso maanta halkan waxaa nagu dhammaaday Sweet Home Season 2 qaybtiisii koowaad la soco qaybaha xiga oo ka sii yaab badan daawasho wacan muuqaalka leeg saar sharagare oo subscribe dheh si aadan u seegin qaybaha xiga